wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdulla Axmed ayaa sheegay in bisha Shawaal laga arkay deegaanka ceegaaga ka tirsan Caynaba. wasiirka oo arintaasi ka hadlayana waxa uu yiri sida tan: waxaa nasiib wanaagga oo farxadna ah in sheekha magaalada ceegaag Sheekh Maxamed Caaqil Cawil Xaad Cali oo imaamka masaajidka ceegaag uu arkay laba nin oo kala ah Khadar Cabdi Isxaaq iyo Buraale Cabdi Jaamac Geyd oo labaduba ay xaqiijiyeen arkeen bishii laba nin oo musalliina oo loo qaateena imaamkii hortiisa bay ka cadeeyeen imaamkiina saas uu nagu soo gaarsiiyay sida darteedna bishii dalkeena ayaa laga arkay mar haddii la arkayna caawa waxa weyn ciid waxaana kowdii bishii Shawaal weeye sida darteed waxaan leenahay dadweynaha guud ahaanba ku noolaada reen iyo barxad iyo wanaag iyo caafimaad waxaan leenahay ugu horeyn hambaliyada qaaliga ah ugu horeysa waxaan ku hambaleynaynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Bixi Cabdi iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici iyo dhammaan mudanayaasha kala duwan ee hogaaminta dalkan isku haya ee gacanta ku haya sidoo kale waxaanu hambaliyo u dareena guud ahaan muslimiinta meel ay joogaan gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland ayaan gaarsiinaa hambaliyada ciida waxaan leenahay كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إلهي هنا أقبل أعمال شصن خير كقبته إن كشرني إلهي سبحانه تكون نار تكحر يا الله هنا جيله إلهي سبحانه تكون بشن إن كو جارسيو رمضان يعيد بجارسيو الله هنا جيله دمان وحنا همبليو والسلام عليكم ورحمة الله. وشبكة بورما ميديا channel.